السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxaan ku sharxi doonaa Python strings wuxuu yahay iyo sida loo isticmaalo. Marka hore Python strings waa xarfo sequence of characters. Xarfahaasi number bay noqon karaan, xarfo caadi ay noqon karaan, laakiinse waa in la dhexgeliyaa single quote ama double quote. Marka single quote-ku waa calaamadda yar ee dusha saaran, wax walba oo dhexgeliso labada calaamadood dhexdooda wuxuu noqonayaa string. haddaad double quote-ka isticmaashana wuxuu isna noqonayaa string. haddaad number xataa dhex geliso double quote ama single quote wuxuu noqonayaa string. Marka integer ma noqonaya, string ayuu noqonayaa. dhowr tusaale ayaanu arkaynaa marka hore oo ku saabsan strings. waxaan sameeyey file aan u bixiyey python underscore strings. codekiina halkan aan kusii qoray si uusan waqti badan idinka lumin. marka aynu aragno sida loo qoro strings, sida loo isticmaalo strings. waxaan sameeyey hadda variable aan u bixiyey salaan is equal to iska waran walaal. variableska haddaad doonto english baad ka dhigi kartaa, greetings is equal to hello. haddaad doontona af soomaali aad isticmaali kartaa. markaan print garayno marka wuxuu noqonayaa string. haddaynu single quote isticmaalana sida halkan oo kale address isna sidoo kale waa string. luqadaha qaar baa ku ogolaanaya inaad ama single quote isticmaasho ama double quote, laakiinse python labadaba wuu ku ogol yahay, marka waa flexible. haddaynu run garayno isna wuu print garaynayaa. haddaynu markaa rabno inaynu ogaano inta xaraf uu ka kooban yahay variableku, waxaanu isticmaalaynaa function la dhaho len. marka len ayaad waxaad dhex gelinaysaa variablekii, wuxuu ku sheegaya inta xaraf uu ka kooban yahay. hadda variableka salaan haddaynu rabno inaynu ogaano inta variable uu ka kooban yahay, waxaanu isticmaalaynaa len. wuxuu inoo sheegay marka inuu 18 variable ka kooban yahay. okay, halkaa waxaanu ku fahanay marka variablekii iyo sida loo berdergaraynayay inaynu isticmaali karno double quote iyo single quote. marka waxaanu hadda fahmaynaa maxay kala yihiin index iyo slicing iyo sida loo isticmaalo. okay, haddaynu variablekii hadda samayno salaan is equal to iska waran walaal. marka variablekaas markuu programku save garaynayo wuxuu u yeelaya waxa la dhaho index. xaraf walba number ayuu u samaynaya, marka wuxuuna ka bilaabanayaa 0 ilaa iyo 17. wuxuu kaloo python ku leeyahay oo uu u samaynayaa waxa la dhaho negative index. marka from right ayuu ka bilaabanaya xagga midig, marka wuxuu noqonayaa -1 -2 wuxuuna u soconayaa dhinaca bidix. indexkana marka wuxuu kuu fududeynaya inaad printer garayso xarfaha qaar ama ereyo qaar aad kala soo baxdo stringkii. matalan haddaan rabno inaan print garayno xarafka I, waxaynu isticmaalaynaa square bracketkaas ayaynu waxaan dhex gelinaynaa number 0, index 0. marka wuxuu print garayn doonaa I ama E. haddaynu rabno inaan print garayno isla E inagoo isticmaalaynaa index negative indexka, waxaynu isticmaalaynaa -8. isla edii ayuu inoo print garaynayaa. xarafka ugu dambeeya l ama la haddaan rabno inaan print garayno waxaan isticmaalaynaa -1. ereyga waran keliya haddaan rabno inaan la soo baxno, waxaynu marka odhanaynaa print salaan ka bilow 5 index 5 ilaa iyo index 11. halkaa waxaynu arkaynaa xarafka ugu dambeeya oo nacda ah ama n ah wuxuu ku dhammaadaa 10, laakiinse waa inaad marka haddaad 10 dhahdo kuma print garaynayo xarafka ugu dambeeya, marka waa inaad dhahdaa ilaa iyo 11. haddaynu rabno inaynu isticmaalno negative indexna waxaynu isticmaalaynaa -13. marka xagga midigtaynu u soconaynaa ilaa iyo -7. okay, tusaalayaal aynu arkaynaa ku saabsan indexingka iyo slicingka. markaasaan hore u saaragnay haddaynu rabno inaan print garayno xarafka ugu horreeya E, waxaynu isticmaalaynaa index 0. sidaan aragto wuxuu print gareeyay E. haddaynu matalan dhahno -18 isla edii ayuu printer garaynayaa. marka haddaad doonto minus ayaad isticmaali kartaa, haddaad doontana positive. haddaynu dhahno markaa haddii aynu rabno inaan print garayno xarafka iska keliya, waxaynu odhanaynaa waxaad ka bilowdaa index 0 ilaa iyo index 4.
haddaan run garayno marka waxaad arki doontaa wuxuu print gareeyey iska. Okay, waxaan kaloo samayn karnaa maadaama aynu zero ka bilaabayno zeroga waad isaga tegi kartaa. waxaad oran kartaa zero intaad ka tagto ilaa iyo number 4 marka automatically wuxuu ka bilaabanayaa number 0. haddaynu run garayno wuxuu ka bilaabanayaa number 0. ereyga waran hadday rabno inaan print garayno waxaan isticmaalaynaa markaa waxaan oranaynaa ka bilow 5 ilaa iyo 11 index 5 ilaa iyo index 11 wuxuu print garaynayaa xarafka waran sidaynu halkan ku arkayno. xarafka walaal hadday rabno inaan kasoo qaadano indexka isagana waxaan oranaynaa from index 12 ilaa iyo 18 haddaan run gareeyo waxa soo baxaya markaa walaal. waxaan kaloo samayn karnaa maadaama walaal uu yahay xarafka ugu dambeeya halkan waxaynu odhan karnaa markaa ka bilow number 12 ilaa waxaynu ka tegi karnaa numberka uu ilaa iyo dhammaadka marka number 18 kaas ayaynu ka tegi karnaa. wuxuu markaa ka bilaabayaa 12 wuxuuna print garaynayaa ilaa iyo dhammaadka isla walaal ayuu markaa printer garaynayaa. haddaynu markaa rabno inaynu isticmaalno negative index xarafka ugu horeeya oo xarafka ugu dambeeya oo ah la ama l waxaynu isticmaalaynaa -1. haddaynu -1 isticmaalno wuxuu programka print garaynayaa la. ereyga xarafka walaal hadday rabno inaan print garayno waxaad iska ilaalisaa haddaad dhahdo -6 ilaa -1 la-da ugu dambeeya ama elka ugu dambeeya uu ka tegayaa wuxuu keliya print garaynayaa walaa. marka waa inaad waxaad samayn kartaa -1 kaad ka tegi kartaa. waxaad oran kartaa ka bilow -6 ilaa iyo dhammaadka automatically marka wuxuu print garaynayaa xarafka walaal. haddaynu hadda aragno walaal ayuu print garaynayaa. markaad adigu qorayso uma baahnid inaad ereyadan qorto kuwan waa iska comment weeyaan. codekaad qorayso keliya codekaas keliyaad qoraysaa. halkan waxaan ku comment gareeyay si aad u aragto resultigii ama wixii soo baxayay markaad programka run garayso. okay, halkaa walaal ayaynu ku aragnay. waran hadday rabno inaan print garayno inagoo isticmaalayna negative indexka isla waxaan odhanaynaa -13 ilaa iyo -7 wuxuu markaa print garaynayaa waran. iska hadday rabno inaan kasoo qaadano codekii aan qornay isagana waxaan isticmaalaynaa -18 ilaa iyo -14 marka waxaa inoo soo baxaya iska ayaa inoo soo baxaya. halkaas waxaynu ku fahnay markaa index iyo slicing. waxaan fahmaynaa concatenation wuxuu yahay hadda. okay, concatenationku waxa weeyaan waa markaad laba string aad isku darayso. marka waxaa la string concatenation means add strings together. laba string ayaan isku daraynaa waxaana la isticmaalaa pluskaas ayaa la isticmaalaa. okay, tusaalayaal aynu hadda arkaynaa ku saabsan string concatenation. okay, haddaynu samayno variable aan dhahno first name is Ahmed, last name is Ali. marka waxaan oran karnaa full name wuxuu la mid yahay first name plus last name. marka labadii string ayaan isku darnay. haddaynu hadda printer garayno full name waxaad arki doontaa markaa inuu labadii string isku daray laakiinse wax space oo u dhexeeya male halkaa. haddaan rabno in space u dhexaysiino marka waxaan oran karnaa halkan ayaan oran karnaa plus empty string ayaynu u dhexaysiin karnaa halkanna plus ayaynu dhex dhigi karnaa. okay, marka haddaan hadda run garayno waxaa inoo soo baxaya Ahmed Ali. okay, marka haddaad plus dhex dhigto laba string wuxuu sameynaya uu isku daraya. matalan hadda haddaan dhahno x is 22 y is 23 labadooda marka haddaynu dhahno matalan z is x plus y ma noqonayo 45 ma noqonayo. haddaynu markaa print garayno z waxaad arki doontaa wuu isdaba dhigaya. marka
concatenationka lagu sheegayo waxa weeyaan wuu isdaba dhigayaa 2 2 2 3 haddii aynu ka dhigno matalan hadda integer waxaad arki doontaa labada xaraf uu isku daraya marka wuxuu noqonayaa 45 taasaa muhiim in la fahmo laba integer haddaad plus dhex dhigto wuxuu noqonayaa addition laba string haddaad plus dhex dhigtana wuxuu noqonayaa concatenation labadaa waa in la kala fahmaa waxa uu faraqa u dhexeeya addition iyo concatenation waxaan kaloo isticmaali karnaa in place operator markaan isku darayno laba xaraf matalan haddaynu haysano textigan hadda subax haddaynu haysano haddaynu print garayno textiga wuxuu print garaynayaa subax haddaan rabo wanaagsanna inaan ku daro waxaan oran karaa haddana variable kale oo wanaagsan intaan sameyn isku dari karaa ama waxaan samayn karaa waxaan oran karaa text wuxuu la mid yahay plus equal waa in place operatorkii aan hadda kahor soo baranay plus equal marka waxaan ku darayaa waxay la mid tahay marka anoo ku daray xarafkii subax aynu haysanay anoo ku daray wanaagsan ayay la mid tahay haddaan marka hadda print garayno textigii waxaad arkaysaa inuu isku daray subax wanaagsan marka haddaad doontana waxaad isticmaali kartaa in place operator haddii kalena labada variable ayaad waxaad dhex dhigi kartaa plus si aad markaa concatenation u samayso okay haddana waxaan fahmaynaa waxa la dhaho replication muxuu yahay string replications means repeating the string by using the repetition operator marka haddaad haddaad string aad ku dhufato number wuxuu sameynayaa numberkaas ama stringkaas ayuu soo celcelinaya waxaa la dhahaa marka replication ama repetition tusaale ayaynu arkaynaa isagana matalan haddii aynu dhahno x halo haddaan dhahno haddaan marka print gareeyo print x times 3 hello haddaynu matalan hello dhahno x times 3 waxaanu print garaynaynaa 3 mar ayuu wuxuu soo celcelinayaa hello markan waxaa la dhahaa replication ama repetition ayaa la dhahaa okay waxaan kaloo fahmaynaa waxaa la dhaho string formatting waxa weeyaan it is the process of inserting a custom string or a variable in a predefined text string ama variable aad samaysay ayaad waxaad dhex gelinaysaa text matalan waxaynu haysanaa waxaan rabnaa inaan print garayno axmed waa 25 jir axmed variable ayaynu ka dhiganaynaa name age-na waxaynu ka dhigaynaa 25 marka waxaan odhanaynaa print f-taas oo ah formattingkii samaynaysa iyo curly brace ayaa wax la dhex gelinayaa variablekii halkaa marka name wuxuu ku bedeli doonaa axmed waa agekin wuxuu ku bedeli doonaa 25 marka saas ayaad u format garaynaysaa tusaalayaal ayaynu arkaynaa markaa ku saabsan string formatting okay matalan waxaan haysanaa laba variable name iyo age waxaan rabnaa in print garayno axmed waa 25 jir laba hab ayaa formattingka dhowr hab ayaa loo isticmaali karaa laba ayaan ku tusi doonaa laakiinse waxaa fiican isticmaasho midka ugu dambeeya matalan waxaan odhan karnaa print meeshii axmed waxaan gelinaynaa curly braces meeshii agekana isna waxaan gelinaynaa curly braces kuwan marka waxaa la dhahaa place holders ayaa la dhahaa halkaa wixii uu gelin doona hadda ayaan u sheegaynaa codeka waxaan odhanaynaa format okay waxaan odhanaynaa marka place holderka ugu horeeya waxaad gelisaa magaca name ka ku xigana waxaad gelisaa age marka haddaynu hadda ran garayno codeka waxaad arki doontaa waxuu print garayn doonaa axmed waa 25 jir waxaan kaloo baranaynaa hab ka fudud oo lagu soo daray python version 3 iyo wixii ka dambeeyey waxaad qoranaysaa print f oo formatting u taagan ayaad ku bilaabaysaa kabacdina string ayaad furanaysaa halkaa marka curly braceka variableka aan dhex gelinaynaa waa haddana variableka aan dhex gelinaynaa marka uma baahnid inaad halkan format samayso variablekii waxaad dhex gashanaysaa curly braceskii haddaan ran garaynana isla resultiga ayaana soo baxaya marka waa haddaad doonto habkan aad isticmaali kartaa haddaad doontana habkan ayaad isticmaali kartaa laakiinse habkan dambe ayaa ka fudud oo kuu fududaynaya inaad hadhowto aadan
u baahan inaad ogaato variableka sad u kala horreysiisay. Halkaa waxaan ku fahnay formattingkii, haddana waxaan fahmaynaa waxa la dhaho Python escape character. Okay, haddaad rabto marka xarfaha qaar ayaan la ogolayn inaad dhexgeliso textiga ama stringa oo waa illegal ayay noqonayaan. Xarfahaas haddaad rabto inaad printer garaysato waa inaad isticmaashaa escape character waxay dhahaan. Escape characterna waxa weeyaan oo backslashka ayaad isticmaalaysaa. Matalan marka haddaad rabto inaad printer garayso codeka lama printer garayn karo sababtoo ah waa stringa ayaa isticmaalaya. Marka waxaad samaynaysaa backslash ayaad ka horreysiinaysaa, wuxuu printer garaynayaa markaa codekii. Double quote haddaad rabto inaad printer garayso sidoo kale backslash ayaad ka horreysiinaysaa. Haddaad backslash inaad rabto inaad printer garaysana backslash kale ayaad ka horreysiinaysaa. New line backslash n ayaad isticmaalaysaa, tab backslash t ayaad isticmaalaysaa. Okay, tusaalayaashan aynu aragno. Okay, haddaan rabo marka inaan qoro sidan on inaan qorin aan saaro halkaas saaro quote-ka ma ogolaanaysa aad ku aragtaan. Haddaan ran garayo iminka wuxuu odhanayaa invalid character ayuu odhanayaa. Wuxuu diidayaa marka waxa weeyaan quote-kaas single quote-kaas. Waxaynu oran karnaa haddaynu backslash hortiisa dhigno markaa wuu ogolaanaya. Waxaan u sheegaynaa escape characterkan wuxuu sheegayaa markaa inuu print garayo quote-kaas oo uusan ka mid ahayn string-ka. Halkaas waxaad arkaysaa inuu markaa print gareeyay quote-ka. Haddaynu rabno inaynu print garayno matalan his mother said and then double quote within double quote waxaan rabnaa inaynu print garayno come here. Waxaad aragtaa inaanu ogolayn sababtoo ah programka wuxuu ku wareerayaa double quote-kan markuu furo wuxuu u malaynayaa marka halkan stringa inuu ku dhammaaday. Okay, halkaa marka waxaynu hordhigaynaa escape character oo ah backslash. Marka wax problema ma jiro, double quote-kii markaa wuu print garaynayaa. Okay, haddaan rabno inaynu markaa printer garayno new line, haddaan hadda backslash n-ka haddaan ka tago matalan haddaan sidaa programka ran gareeyo waxaad arki doontaan hal line ayuu wada dhigayaa. Iska waran maxaa lagu bariyay. Laakiinse haddaan halkan dhigo backslash n waa new line la socda. Marka backslash n haddaan halkaa dhigo waxaa soo baxaya markaa iska waran maxaa lagu bariyay, wuxuu geynayaa lineka ku xiga. Haddaynu isticmaashno backslash t-na backslash t waa tab waxa weeyaan space. Marka space ayaan halkan ku bilownay, halkana new line ayaan idhi haddana space ayaan ku bilaabay. Marka haddaynu run garayno waxaad arki doontaan spaceka waxa keenay tabka ayaa keenay backslash t-gaas. Haddana backslash t-ga halkaa ka saarno waxaad arki doontaan inuusan wax space u dhexaysin. Marka space haddaad rabto inaad u dhexaysiso inaad isticmaashaa backslash t. Okay, markaad qorayso text dheer way adkaanaysaa inaad meel walba geliso backslash n. Markaasoo kale waxaa la isticmaalaa waxa la dhaho triple quote. Matalan waxaan qoraynaa text dheer. Text wuxuu la mid yahay triple quote ama single ah ama double ah ayaad isticmaali kartaa. Halkada single ayaan isticmaalnay. Waxaan odhanayaa assalaamu calaykum. Okay, haddaan enter dhaho halkaas automatically wuxuu ii gelin doonaa backslash n oo programku xasuusnaan doonaa meel walba enter ku dhuftay. Enter. Okay, hadda marka haddaan print gareeyo waxaad arki doontaan meel walba enter ku dhuftay wuxuu gelin doonaa programku new line ayuu gelin doonaa. Marka haddaan run gareeyo waad aragtaa assalaamu calaykum iska waran waxaa lagu bariyay meel walbood enter geliso automatically wuu xasuusnaanayaa programka oo isaga markaa backslash n-kii kuu gelinaya new line-kii isaga kuu gelinaya. Hadda waxaan isticmaalay single triple quote, double triple quote no isticmaali kartaa, waa isku midka doontaad isticmaali kartaa. Okay, halkaa waxaa inoogu dhammaaday qaybtii ugu horreysay aan kaga sheekeynayay string. Waxaan sii socon doona qayb labaad oo aan ka dhigi doono video gooni ah. Waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.